wiilkii raabarka ahaa ee heesaha raabka qaadayay ee Sharma Boyna markii ugu horeysay waxa uu shaaciyay inuu furay gabadhii uu qabay ee milyuunmaanka si toos ah ayuu u soo galay TikTok-ga isagoo cadeeyay in gabadhaasi ay kala tageen laakiin kala tagga gabadhaasi waxa sababa ayaa la yaab leh Sharma Boy ma uu qarsan waxa sababay in xaaskiisii uu furo waxaan arrintaasi lala xiriirinayaa kiis ku saabsan William Maslax Mideeye oo fanaana halkaas kiis ka dhashay darteed ay u kala tageen Sharma Boy iyo gabadhiisii wuxuuna Sharma Boy oo muuqaal kala soo duuba sheegay in uu qiyaamay saaxiibkii Maslax Mideeye hase yeeshee wuxuu ku goodiyay ama uu ku hanjabay in arrintaasi ay wax walba banaanka imaan doonaan marka uu tago dalka Djibouti Sharma Boy ayaa la rumaysan yahay in markii uu ka qayb galay dib u doorashadii madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle la siiyay baasaboorka dalkaas hase yeeshee asaga iyo saaxiibkii Maslax Mideeye ayaa waxa soo kala dhex galay kala shaki kadib markii Sharma Boy uu aaminay in cunuga yar ee loo dhalay uu yahay cunug uu isaga dhalin oo uu dhalay wiilka kale ilaa Maslax Mideeye lama rumaysan karo DNA-da sidoo kale gabadhaasi ay kala tageen mataqaana Sharma Boy ee la yiraahdo milyuunmaanka waxay caan ku tahay gabar wanaagsan oo asluub badan oo dhaqan fiican oo dhowrson sida darteed dadka qaar waxa ay leeyihiin waxa ka waalay Sharma Boy daroogada uu isticmaalo oo uu buuf isku riday manajista ayaa leeyahay waxad guduba oo uu ku sameeyay wiilka la Maslax Mideeye ee reer Djibouti ee beesha Ciisaha u dhashay Soomaali Maxamed horta inta xanta jecel waan salaamaya waxaan rabay inaan ka hadlo oo muhiim ila noqoto inaan ka hadlo horta Ilaahay adduunkan wuxuu u weyneeyay oo u balaariyay in ay dadkiisa ku kan nabad galaan muslim iyo gaal inta uu abuurtayba su'aasha marka isweydiinta mudneed oo social media dhex wareegaysay oo socotay waxay ahayd Sharmaake iyo milyuun ma kala tageen horta aniga milyuun si sharaf leh aan isu guursanay maanta si sharaf leh ku kala tagnay waliba intii aysan ma kala tageen iyo waxaas ay soo bixin ka hor aan ayada kala dhamaanay laakiin arrinkeena social media ma keenin haddana daruuri way ila noqotay inaan hadeertaan dadka u sheegaa wax qalad kuma kala tagin gabar wanaagsan oo isqabno walaashay ahayd kala dhamaanay istinaw inuu daawanayo laakiin runta way soo baxeen waana la ogaanaa dadku dhanna way ogaanayaan runta abti macaa insha Allah hadduu alla idmo وإنتان جيبوتي كإيمانا وكلي إنت رنت لقى أغانا جيبوتي إنت عنك إيمانا واي رنت إنت لقى أغانا حقيقة وح أنقرنا ملا بابا سيكا سواعتي Sharma Boy ayaa horay waxa uu dalka Zambia halkaasi oo la rabay inuu ganacsi ka sameesto laakiin waxa uu dilay oo toore ku dhiftay oo dhaawacay wiil ay isku jifo hoose yihiin oo darawal u ahaa oo gaari u waday oo ku soo dhaweey dalkaas kaas oo caawinayay muddo dheer taasina waxay sababtay in ugu dambeyn dadkii tolkiisa ahaa isu tageen laguna qanciyay inuu dib ugu laabto dalka Sharma Boy oo atiikan magaalada Muqdisho cabsi uu qaba dartii ayaa iminka waxa uu ku nool yahay magaalada Garowe ee caasimada Puntland waa markii ugu horeysay ee Sharma Boy uu cadeystay laba arrin oo dhaqanka Soomaalida aan caadi ka ahayn waa markii koowaad inuu soo istaagay oo uu yiri gabadhii asluubta badneed ee quruxda badneed waan furay oo waa kala tagnay iyadoo waliba bilooyin kaliya dhalan sidoo kalena arrin la yaab la ay noqotay inuu cadeystay xantii suuqa ku jirtay ee ahayd in Maslax uu ka hinaasay oo uu gabadhu qabo uga hinaasay wuxuuna sheegay in Maslax Mideeye uu qiyaamay oo uu ka carsan doono isagoo waliba xusay inay saaxiibo yihiin arrimahaasi iyo arrimo kale oo badan ayaad qobanaha uga bogan doontaa laakiin arrimaha dibadda haddii aan aado waxa weeye ascaartii caalamka oo dhan cirka ay isku shareertay gaar ahaan qaarada Yurub iyo North America iyo Australia wax kasta wixii ay joogeen laba jibbaar ay noqdeen